banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa ka soconaya guud ahaan dalkani Koonfur Afrika iyadoona banaanbixii ugu weynaa uu ka dhacay magaalada Cape Town oo ah xarunta looga arrimiyo dalkani Koonfur Afrika. dibadbaxayaashani oo socod dheer ku soo maray jidadka halbowlaha u ah magaalada Cape Town ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin dooni mayno hadhaco madaxweyne Zuma iyo eraya kale iyadoona ugu dambeyn ay isugu soo urureen aqalka baarlamaanka ee dalkani Koonfur Afrika. isjiidka siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa uu saameyn ku yeeshaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika iyadoona cabsi xoogan ay soo food saartay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsata magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. magaalada maanta aad bay xaaladeedu u kacsan tahay ilaa ay xalay ilaa maanta ganacsiga ma shaqeynayo anaga taa si fiican hadda uma aan shaqeynin laakiin in dukaamadana waa la wada xiray dareenka magaalada aad ay u kacsan tahay wali tan oo kale ma aysan soo marin dareenkeena aad iyo aad way u kacsan yahay magaalada waxa ka taagan banaanbax aad iyo aad u ballaaran hase ahaatee dukaamadii iyo wixii dhan waan kaloosna waa la wada xiray bal waxaan fiirinaynaa jawiga soo u dhici doono ilaa xalay ilaa hadda way taagan tahay xaaladdu aad ay u kacsan tahay marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed ilaahay ka badbaadiyo intii muumina oo muslimiina dhalinyaradii Soomaalida oo ganacsatada balad ku hayeen way ka wada saaxdeen qof walbana gurigiisa uu ka soo bixin hadoona walaanbaxa oo mucaarad oo Zuma oo ku ahayn ayaa la yiri anagana ma rabno waxaas inaan midabta kor aan noqono ganacsiyadayna sidaas ku xireen. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa dhowr jeer oo hore loogu baaqay in xilka uu isaga dago iyadoona arrintaasi uu ka biyadiday. mooshinkii afraad ayaa haatan hor yaalla baarlamaanka dalkani Koonfur Afrika ka oo u muuqda mooshinkii ugu cuslaa ee abad laga gudbiyo madaxweyne Zuma waxaana sidoo kale xusid mudan in mooshinkani ay ku qaybsan yihiin xubnaha baarlamaanka uga jira xisbiga talada haya ee dalkani Koonfur Afrika. banaanbaxani ayaa noqonaya banaanbixii ugu weynaa ee abad ka dhaca dalkani Koonfur Afrika waxaana lagu diiday